shirweynihii wadatashiga xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika ayaa si habsami leh loo soo gabagabeeyay. Maxamed Axmed ayaa baafinta warkaasi noo eegaya. kulan ballaaran oo wada tashi ah oo ay yeesheen xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qurba joogta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika ayaa ka qabsoomay magaalada Minnesota ee waddanka Mareykanka. kulan weynaha xukuumadda iyo qurba joogta waqooyiga Ameerika ayaa waxa ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiirka xafiiska horumarinta xoolaha iyo reer guuraaga Marwo Maajida Maxamed Maxamuud ayna ku wehelinayeen wasiirka xafiiska madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdimahad Maxamed Cabaas, wasiirka xafiiska ganacsiga gaadiidka iyo warshadaha ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Khadar Cabdi Ismaaciil, wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Ibrahim Aadan Mahad, maarayaha macadka cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Guuleed Aw Cali Kaahin iyo qaybaha kala duwan ee qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika, gaar ahaan hogaaminta qurba joogta waqooyiga Ameerika, dhalinyarada, odayaasha, hooyooyinka iyo bahda fanka iyo halaburka. haddaba kulankan ballaaran ee xukuumadda iyo qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa si weyn loogaga wada tashanayay isla markaana si qoto dheer loo falanqeynayay sidii loo sii xoojin lahaa geediga horumarka, nabadgelyada, nidaamka maamulka suuban ee ku salaysan dib u curashada ee dhidibada u aastay horumarka iyo nabadgelyada uu deegaanku maanta ku naaloonayo. waxaanayna wada tashigan aan ka maqnayn oo qodob muhiim ah ka ahaa shirweynahan sidii ay qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen horumarka laxaadka leh ee ka socda deegaanka isla markaana u soo maalgashan lahaayeen dhulkooda hooyo. kulan weynahan oo ay ugu horreyn ka hadleen mas'uuliyiintii ka socotay deegaanka ayaa waxay ugu horreyn ku soo bandhigeen gulihii iyo waxqabadyadii ay xukuumadda deegaanku soo hoysay sanadihii u dambeeyey ee gaar ahaan horumarka iyo nabadgelyada, khaasatan dhinacyada biyaha, beeraha, caafimaadka, waxbarashada, jidadka iyo dhammaan kaabayaasha horumarineed, iyo sidoo kale ballaadhinta qaabdhismeedka dawliga ah iyo yagleelidda mikrofinansiga. shaqa abuurna loo sameeyey 100,000 kun oo dhalinyaro ah iyo weliba guulaha ay xukuumaddu ka soo hoysay dhanka xidhiidhka dadweynaha ee dal iyo dibadba. dhankooda qurba joogta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyiga Ameerika ee ka soo qayb galay shirkan ayaa si weyn uga markhaati kacay dhammaan waxqabadyada horumarineed, nabadgelyo iyo maamul suuban ee uu deegaanku ku tallaabsaday 8 sano ee ugu dambeysay, maadaama ay intooda badan indhahooda ku soo arkeen. waxaana kulan weynahan wada tashiga xukuumadda iyo qurba joogta ka soo jeeda deegaanka ee ku nool waqooyiga Ameerika Call Conference kaga qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar. ugu dambeyn kulan weynahan ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyo niyad ka midaysan sidii wadajir ay xukuumadda iyo shacabkeeduba hore ugu socon lahaayeen una tirtiri lahaayeen saboolnimada oo ay bulshaweynta deegaanka u gaadhsiin lahaayeen horumar iyo nabadgelyo aan dib u noqosho lahayn, isla markaana ay u buuxin lahaayeen kaalinta deegaanka kaga aadan yoolasha uu dalkeena Itoobiya ku rabo inuu kaga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay. waxaan ogsoonahay horumarka ballaaran ee hawliga ku socda ee isbedelaya inuu cadow leeyahay. taayada maan qiraynaa cadowgaas oo wajiyo badan ama shaarar badan. haddaynu cadowgaas isla eegno, kow waa mid nabaddiidnimo ku soo geli,
mid diinta gabaad ku soo dhigan oo argagixiso al-shabaab ah mid siyaasad ahaan kaga hor iman horumarka ballaaran sidii SSID oo kale iyo mid qabiil shaar qabiil huban waxaad ogsoontihiin ama tusaale inoogu filan shakhsiyaad magaaladan aad joogtaan degan inay rabaan inay isticmaalaan shaar qabiil iyaga oo raba dana khaas ah ama dana ajandayaal khaas iyaga u ah inay ku adeegsadaan shaar qabiil waxaan leenahay ama aan u sheegaynaa beesha jidwaaq madaxweynaha jidwaaqa annaga ah inteena halka fadhido ah ka yeeli mayno marnaba ka yeeli mayno inay ku qanacsadaan ama ajanda ay ka dhigtaan magac beeleed waxaan leenahay haddii noloshii Maraykanku adkaatay magac shaar wax ku ururin maysaan been baan leenahay waxaan ogsoonahay oo la soconnaa in cadowga onag ay la shireen ay la kulmeen rabaanna isla markaa isbedelada iyo dhibaatooyinkii shacabkeena inta badan soo agardaameeyay inay dib ugu celiyaan waxaan leenahay marnaba idinka yeeli mayno in aad shaar qabiil intaad soo gashataan shacabkeena kala tafaraaruqdaan waan diidnay baan leenahay kuwii idinka horreeyayna waan ka diidnay idinkana idinka yeeli mayno shakhsiyaad bay noqonayaan ma ahane marnaba magaca beesha ay rabaan inay shaarkeeda gashadaan ka yeeli mayno ta kale waxaan idiin sheegayaa nimankan garaadada iyo suldaanada isku sheegaya ma idinkaa doortay dee garaad kulmiya wuu joogaaye garaad suldaan Abdiraxmaanna wuu joogaaye meesha lagu doortay garaadnimadooda iyo suldaannimadooda waa la sheegay hadday jirto waxaan leenahay magafayaal weeyaan waa magafayaal ugu dambayn marka gacmo wada jir bay wax ku qabtaan waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaan horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga aynu haysanno inaynu halkaa ka sii wadno isla markaana aynu ka soo horjeedsanno cid kasta oo cadow ku ah horumarkeenna iyo nabadgelyadeenna cadowga aynu leenahay waa saboolnimo cadowga keliya aynu leenahay waa saboolnimo sidii aynu uga bixi lahayn ee dadkeennu heer sare ay u gaari lahaayeen gacmahaas ka qabsannaan leenahay guud ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa jaaliyadda North America oo lagu yaqaanay mar walba oo wafti uu yimaado ama xukuumadoodu u timaado inay si ballaaran u soo dhaweeyaan thank you baan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin